وحسوستا سؤاشو ugu horeysay marka liibaan isbaraneynay aweydiiyay lakina waa weydiiyay su'aashan isagana waa weydiiyay waxa ku dhahay balwad ma leedahay. Hey guys, soo dhawaada tani waa aniga sheekadayda. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى قلبي سو dhawaada YouTube channel ka daawanaysan Munir Official. YouTube ka subscribe aduusan ku saarnay subscribe no saar sababtoo ah waxa saaranahay wadadii aan ku gali lahayn 1 milyan subscribers si iyo u gaarno nagala qayb qaado jaanigaas ama safarka dheer oo 1 milyan nooga dhiman aad u mahadsantahay. Teeda kale to channelka maalmahan indhaha ku haya because of waxa soo socdo big news mafahmaysiin iyo barnaamijyo waaweyn oo still ku raaxaysan doontaan wixii hore waa been marka channelka haduusan subscribe ku ahayn subscribe saaro hadduu gambalaal ku furay hadii kale hubi si aad u noqotid qofka ugu horeeya marka wax soo dhigna daawada soo dhawaada waxa dhaxda uga jirnaa barnaamijkii ahaa aniga sheekadayda oo waxa mareena part 3 ama qaybta saddexaad si qaybtan saddexaad u fahantid waxa u baahan tahay inaad soo daawatid qaybta koowaad iyo qaybta labaad iyo hordhici ugu horeeyay so intaas marka soo daawatid waana la qabsan kartaa so let's go waxa mareynay markii laki isbaranay kadibna uu ii sheegay in uu jiro nin dhalinyaro oo raba in uu nala shaqeeyo ama nagu soo biiro ama nagala qayb qaato wadada dheer aan ku jirno ee dadaalka ah ani at that time ma garanaynin dhalinyaradana like si fiican misku aqoonin because of haddii aad taqaanaan ama ay jiraan dad xilligaas i garanayay waxaa jirtay waana shaqayn jiray YouTube-kan waxba soo post gareyn jiray sida hadda lazy u ah oo kale ma ahayn because dhalinyarada micnaha waxa sababta waxa sidii ugu sheegay waxa waaye dhalinyarada magaalada asla deganaa inta ugu badan aqoon isku lahayn kuwa yar kubadda asla ciyaari jirna marka laga soo tago marka dhalinyaradana xilligaas waxay aad ugu badnaayeen dhanka balwada iyo like مقادرات وفهميسينا ومالينا so anigane كلين مادام اها ومجعلين إنا لا صاحبه قف بالود له so ارغان احد idin sheegayo sheekadayna qeybaha ugu dambayso ama ba adi xilli marmanba oo muhiim noqon doonaan like meel ku qoro ma jeclayn dadka balwada isticmaala ani like dhalinyarada balwada isticmaasho like ku haysanin 5 call fahmaysa so taas meel ku qorto okay bis waxaan u mareysay laki inuu ii sheegay inuu jiro nin dhalinyaro ah oo raba in waxaan uu nagala qayb qaato social media-hana oo magac ka sameeyo so muddo ka caga jiiday ma fahansaneen maadaama dhalinyarada xogaa like balwada adi xogaa dagaalkooda xaafad isku dagaali jireen inay fahmuusiin rajayna dhalinyarada like intuu degan yahay weydiiyay and then waxa xasuusta wuxuu igu dhahay section 1 uu degan yahay section 1 qofkii yaqaano ay yaqaano like Nairobi section 1 section 3 meelahaas like masterka adi waa i fahmaysiin I think hada reer Nairobi tahay so section 1 qofkii yaqaano let's move on marka muddo ka caga jiiday markii dambe laki wuxuu igu dhahay saaxiibow ani adi dad walaalanahay waxa adiga ii keentid ama wax allaala waxa adiga aawadatid aniga madaxa ii saaran yihiin oo ixtiraam badan u haya soo ninkan dhalinyarada waa nin aniga saaxiibkay muddana waa isnaqaana sidoo kale isagana meel buu famous ka yahay dhanka WhatsApp ko kale soo hadii ay xilligaas xasuusataan waxa jiray wax la dhaho WhatsApp share oo dad badan caan ka ahaan jiray sida waxa waaye cali cadaawo kale xamaada midee dhahaan wiilal badan jireen oo WhatsApp markay wax soo dhigaan 10,000 20,000 ee daawin jirtay so qofka kula soo hadlay save me asdaysin hatta mi istaqaanin oo ku daawana views ka lagu tartami jiray so dadkaas xilligaas hogaamin jiray marka ninkan liibaan ahna wuxuu ku jiray dhalinyaradaas WhatsApp wax ku soo post gareyso oo fiidiyoyada qaar oo aragteen oo hatta mararka qaar uu kaftamaayo waxyaabo baashaal sameeynaayo like waxa asalkooda waxay ka yimaadeen isoo Soomaali jooga xataa uu duubi jiray WhatsApp ka ka yimaadeen asalkooda inay fahanteen arjina marka laakiin markii dambe waxa ku dhahay waa okay horta marka hore yarka is aragno wada fariisano
wada hadalno and then ogaado hadafkiisa ama waxa uu like qaabka uu rabo waa xasuustaa waxay igu imaadeen galab goobtayda shaqada meesha shaqada anoo joogo ee ii imaadeen habeenkii markaa la kasas dhahay biri galab isku imaana ku habeen galabtii kale ii imaadeen marka waxay ahaayeen qof kale ma la socday horta galabtaas ilaahu aan beerka u dhiman may labadooda bisi ahaayeen lucky liibaan isla socdo igu imaadeen meesha isku baranay marka meesha isku baranay shaaxa meesha ku cabnay like all of a sudden waa taqaanaa like waxaa jirto dad markaa isbartid isla isbiriqsi isla qabsanayo like si fiican isku fahmayo isla sheekeysanayo isla kaftamayo hadalka isku baxayso so marka ani liibaan waxa ahayn like البريكسيو كلا اسكو فهمني لايك سي في عنا اسكو براني waa sheekaysanay waa kaftanay meesha shax ku caabnay so marka balanteena waxay ahayd in like arinta oo social media iyo aqbalitaanka ka wada hadalno hadii aqbal iyo hadii diido and then macnaha tsala meel kale ay u socdaan oo kale iyaga labadooda israaci doonaan so sidii ma dhicin adiga meesha ku daahnay ilaa galaba ii imaadeen casir oo kale wax xasuustaa ilaa maqribka meesha ku gaarnay at that time wax xasuustaa isla xaafadaas ku raacnay ma ahan xilliga muuqaalkan duubi doona ma ahan laakiin xaafadaas ku raacnay si fiican aan isku dhaxgalnay soo markii wixii kaftankii iyo sheekadii iyo wixii dhamaadeen xilligii intaan xaafada aadin ka hor si serious ah marka wada hadalnaa wada fariisan soo dhawo ku dhahay lucky hortii baryarkan iska baru dhahay liibaan lahaa inanistiisa liicaato waaye isna wuxuu dhahay ninkan Muniir lahaa iska baro ninkan waxa soo duudubna ninkan adiga ninkan odaga inuu nagu soo biiro raba isbarta sidii isku barana waa iswareysanay waa xasuustaa su'aasha ugu horeysay marka liibaan isbaraneynay weydiiyay lucky-na waa weydiiyay su'aashan isagana waa weydiiyay waxa ku dhahay balwad ma leedahay and he said no marka ani su'aasha igu muhiimsanay taas ahayd mayu dhahay so waxa kale weydiiyay like hadafkiisa like social media muxuu ka rabaa dan wuxuu dhahay wiligiya jeclaa ina social media ama iskuulka xataa riwaayada ka sameyn jiray wiligiya jeclaa jiliinka waa ku fiicnaa so xilligaasna hadaa xasuusatiin waxa sameyn jirnay wax la dhaho short films so liibaan sidii isku baranay waxa dhahay marka intaas hadee muhiimadu tahay niyow qadarta ilaaha og ina muddo badan waxaan sii wadi doono ama ina ka bixi doono anaga dhan soo saaxiib soo dhawow meeshaada waaye sidii isku soo biirnay so waa taa duubnay videoga idin tusinayay wax yar ka hor habeenka ku xiga duubnay marka sidii YouTube kugu soo dhaweeyay inta ka dambeysana waa taariikh oo waxa idinka daawanayseen ay ahaayeen walow waxyaabo kale oo behind the scenes ay jiraan laakiin inta ugu badan ilaa safarkii ilaa wixii dhan meeshaas so marka u soo noqday liibaan qof nuucee u ahaa macnaha sidoo ahaa nin iska dhalinyaro labista حركة iyo faankana zaid u jecel the other thing kaftankiisana zaid u badnaa xitaa qof uu garaneyn like oo hadda ku cusbiya xitaa inuu la kaftamo soo qof saas u ahaa and then dhibaato kalena wuu lahaa because of bini aadanka saaxiibo markaa tihiin ama walaalo markaa tihiin waxyaabaha ku fiican tahay waxyaabaha ku xun tahay jiro liibaan waxyaabaha uu ku liitay waxay ahayd tusaale ahaan maanta aniga markaa dhibaato tabanayo miihi qofka dhibkiisa qariya miihi qof oo like ship intuu dhaw wuxuu qaba qaranay liibaan waxa waaye xitaa haddii uu ka xanaaqsan yahay iyo haddii kale ma ogaan kartid ilaa waqti aad gelisid wareysatid ku dhegtid ma ogi haddii inuu isbedelay laakiin at that time nin cuqdad garanaya iyo waxaas mu ahayn so cilada keliya lahaa waxay ahayd haddii qalad uu tabanayo ma ogaan kartid calooshiisu iska qarsana so inuu hadhow u badato marka dambe hal mar qarxa laga yaabaa uu ku soo bilaabo muddo ka hor xataa wuxuu ka tabanay oo sanad ama bil ka hor waxa ku sameeyso kaleeto ama ka halees inuu ku sheego markaas so ciladaasna uu lahaa markii waxa sidan laga soo tagana aad waa isku fahanay saddexdeena xilliyo waxa soo marnay aabahneen xilliyo aad aragsaneen waa soo marnay so baahida ma ahan
like dhalinyaro ahaan ina u baahneen like ina caadi u baahneen oo meelaha seexano iyo waxa cunno aaweyna ma ahayn laakiin ka dhalinyaro ahaan waxa u baahan tahay inaad labisatid magaalada gashid baashaashid dalxiistid waxa rabtid samaysid qadaadii ciyaar jaabka iskaga ka jirto mararka qaar jaabkeenu eber waa arkaynay laakiin most of the time alxamdulillah way noo fadhisay so arinteenana saaxiibtinimo way ka gudubto waxaan noqonaa dad walaalo ah wixina way qornayna dhigi karaa sababtoo ah liibaan isaga ka hor waxaa jira dad badan is aragnay wada xiriirnay ama ka wada hadalnay inaan wada shaqeyno ilaa hadda sameeya oo qof cusub inuu ila shaqeeyo waa jeclahay so marka dadkaas u suurtageli weysi qadar me qaarkood cilado kala ku aragnay way jireen oo isku fahmi weyne qaarkood wixii cusub inay lacag nagala hadlaan lacag meeqaan bishii siina waa qof isagu ku soo raadiyay raba inuu kula shaqeeyo raba in la barto qaarkood maanta caan hambaliya idin leeyahay so qaarkood lacag inay kala hadlaan marka the only thing oo liibana isku faano waxay ahayd ko jawigeenu isqaatay vibe-keenu isku keen bixisay iyo wax lacag ku saabsan iyo wax dhaqaale ku saabsan uusan igala hadlin balwadna muu lahayn so saddexdaas waxa ugu waaweyn oo dhihi karaa maanta inaan saaxiibno midda ugu sii weyn lucky oo isku keenkeena anaga fahmaysa saddexdeynaba lucky isku keenkeena marka inta ka dambeysana taariikh ay ahayd ilaa safarkaygii Malaysia ku aadi doono so waxyaabaha kale oo yaryarka oo maalmaha gooniga sida u dhacane si gooniya idin kaga sheekayna laakiin sheekadina isku keen xiray ilaa Malaysia gaarsiiya raba maanta inta soo keena aad iyo aad u waasantii next waxa daawan doontaan Malaysia sida ugu go'aansan inaa u aadno marka tagnay sida ay ka filayna may noqotay mise sida si kale ka duwan dadka wax badan ee Malaysia ka sheegaan ma runtood miya mise waa beentood next muuqaal ku daawo وكما ستين داوجة فيديو عن داوتين وحنيجي تقاسل عن تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته peace